wax badan baan isku daynay in la badbaadiyo wax badan baan qaydhaaminay war galmudug hal soo celsho war kuma taagna war waa socotay war sukaana keena war aan ka hadalno cid soo baxda waan weynay heerka hadday tagtay dan waxaan bidnay in reecadaadood go'aan cad gaaraan go'aankaas waxa weeye inaanu iskaga baxnay oonaa ka mid ahayn galmudug dibaddaa ka nahay waxaana la yidhaahdaa reer xaaji suleymaan oo akis ahaan jiray xiban iyo xeeb waana tashanaynaa go'aanna waa ka gaaraynaa intaa waxaa noo weliya dadka deriska ah oo walaalahaya ah derisnimaa naga dhexayda walaalnimaa naga dhexayda wadahadalna naga dhexayda dadkii waxaan ahayn awal wax wada dhistay haddana arrintu ku xumaatay dadkaas oo wada hadli karnaa wax walbaa naga dhexeeya walaalaan nahay laakiin arrinta mas-uuliyadda galmudug ma la hadlayno waxaanu uban darsana waa kala tagnay si cad ayaan u kala tagnay waa naga dabadda waxaan rabnaa oo caalamka maqashiinayna beesha caalamka waxaan maqashiinaynaa inaanan ka mid ahayn dowladda soomaaliya federaalka waxaan maqashiinaynaa inaanan ka mid ahayn dibadda kana maanta laga bilaabo reer xaaji suleymaan reer cadaadood inaysan galmudug ka mid ahayn ka baxeen si cad uga baxeen intaasoo ogeysiinaynaa waa xadkeegu waxaan nahay dad mas-uuliyad leh oo qaymaysan oo la garanayo oo akis xaman iyo xeeb ahaa oo dhibaato muslimka aan u keenin wanaag iyo wixii sharafta ay keenaanna la dabamareeyey xadkeegu waa noo xiran yahay dadka muslimka u furan yahay laakiin mas-uuliyad galmudug ma fira go'aankanu intaas weeye reer xaaji suleymaan waxaan caddaynaynaa oo dadka muslimiinta u sheegaynaa maamulada kala duwan u sheegaynaa dowladda federaalka u sheegaynaa inaan qaadacnay galmudug inaan ka baxnay in waxaa la rabaa la caddeeyo warkaygu waa cad yahay waa war go'aana reer xaaji suleymaana go'aankaas gaaray waxaan kaloo sheegaynaa dadka nala deriskaa oo walaalahayaa in aan ku wada noolaanno si derisnimaa si nabadgelyaa ayaanu ugu baaqaynaa jecelnaha inaan kula noolaanno ayaguna aan rabnaa inay nagula noolaadaan waxa aan rabnaa xuduudaha yaga maamulka galmudug hadduu ku soo xadgudbo inaan iska dhicinno intaas kadib waxaan rabaa in yar inaan ka taabto galmudug inaan qaadacnay odayaasha iga horreeyaa sheegay sababaha aan ku qaadacno nagu kallifay inaan wax yar ka taabtaan rabaa waxaa sababaha kan midda koowaad ay tahay maamulkii galmudug lambar 1 madaxdiisii dastuurkii galmudug lagu dhisay oo ayaga lagu doortay ayay jebiyeen oo urur bay ula galeen qodobka labaad dadkii 11 ahaa ee tashigaasu ka dhaxeeyay ee galmudug dhistay siyaasi iyo oday iyo culummo iyo dhalinyaro waxay ahaayeenba dhammaantood taladoodii waa loo diiday oo waa u diideen inay ka qayb galaan taladooda tan labaad waxaana dhexdhexaad annagoo ka istaagnay oo bannaanka ka istaagnay madaxweynaha dowladda federaalka nagu soo baxay dib u heshiisiin baa la galay waxaa nala ku dhexdhexaadiyey oo nala ku heshiiyey qodobadii nala ku heshiisiiyey mar labaad madaxda galmudug waa jabiyeen waana ka baxeen waa ku qaadacnay sababaha aan ku qaadacnay yay lambarka saddexaad tahay lambarka afraad waxaa cadaado madaxweynihii hore ee galmudug ee cabdikariin uu u magacaabay rugta ganacsiga inay cadaada tahay ugu dambaysta meesha caasimaddii dhuusamareeb laga dhigay mar labaad madaxdii galmudug waa jabiyeen qodobkaas dhuusamareeb bay wareejiyeen mar saddexaad markii galmudug madaxdii urur ula gashay oo gacan urur gashay qabiilaadkii galmudug dhistay waxaan ugu baaqnay galmudug inaan cayminno god bay ku dhacday waxba waa ka soo bixi waayeen wax jawaaba waa weynay cid ay xanuujinaysa waa weynay intaasoo dhan markaan eegnay markaan aragnay waxaan go'aan ku gaarnay galmudug wixii aan ka soo marnay inay imbaas tahay
maadaama ay intaas tahayna inaanan annagu aynan cidlo ku lumin aynan ka daba lumin sidaas awgeed inaan qaadacno sababaha caynkaasa yaa nagu kallifay sidaasaana ku qaadacno xaduudaha aan leenahay waa xiran yihiin waa xirannay waxaan ka xirannay soomaaliya kama xira inteeda kale islaamka kama xira anke masiixi kama xira waxa aan dhibaato noo wadin waxay ka xiran tahay oo aan soo geli karin oo dhiigga iska cabaynaa hadday u soo dhaqaaqaan galmudugta gashay oo islaba rogtay oo dastuurka cusub qoratay oo aanan shaqo ku lahayn qoladaa weeye qoladay ka xiran tahay